deeqbaase ayaa la geysiyay dadkii dhowaan ka waxyeeloobay qaraxyadii isdaba joogahay ee kordhiyay 18 Oktoobar qaybo ka mid ah gudaha magaalada Baydhabo. Ibrahim Macalin Cumar iyo warkaasina faahfaahiyay 18 Oktoobar isbuugan hadhaafni magaalada Baydhabo wayba ku dhiyay lama qarax isnadaameen ay jeeshadeen qasaariyeen iska jarta dhimasho iyo dhaawac awlaad badan ka ogoon toobeen hooyo badan asaan saari wayba magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baayge kala ka doonsiyay deeglaaga dadkii waxyeelada ku deertay lamadii qarax isnadaameen ka hayeen jeeshadeen kooxda maleeshiyada Al-Shabaab 18 Oktoobar oo ka dhiyaan gudaha magaalada Baydhabo dadkii ka baasadaan langeebiyo iyo iska jaraan haween irig oo wala ka deeri lamadii qarax isnadaameen ka hayeen ku dhiyaan 18 Oktoobar magaalada Baydhabo lacagtan iyo way baharuuriyay dhalinyaro iska hel qaameen si oo aabe lahaayeen musan la qaybsada lahaayeen murugto walaasho dhibaysan kulankan la qaybiyay taagta lacageed iyo way baa ku qayb galay qaar kumid ah gudoomiyalka xaafadda magaalada Baydhabo saasoo kale u qayb galay afyaanada gudoomiyada xaafadda magaalada Baydhabo wayba meelaneen ku hadalay qaar kumid ah dhalinyarada in ka haysiyo aabe lahaayeen dadkii waxyeelada ka deertay 18 Oktoobar waana la qaybsada lahaayeen murugto iyo nin ku harbeen xaaladda dareen iyo hoolaha shaqeeyo ka qobadahayaan gudaha magaalada Baydhabo xaaladda go'aan iyo go'aanta iyo si aan aabe lahaayeen guud ahaan dadka ka dhibaataysan ee isbitaalada magaalada Baydhabo oo may baana dhalinyaradii degmadan oo marneedii madii dhibaatada dhiidi hakahan walayo hakahan may baaha walaaladii oo dhibaataas deertay sidii oo marneedii garabshoodii surma lahaay hakahan dhalinyaradan degmadan may baaha geeka isxilqaanka iyo suubiyan wallahi may baara koraha deegi doona insha Allah laakiin muhiimad wali taa inuu dareenkana muujina oo meel raayis karbul shariidahan degmadan Baydhabo magaca isla siin shay inuu isaaqeedo galabta walbadan qudbeey jiray laakiin galabta ma qudbeey kor wallahi xaqiiqda madana siin shay eedan qiradahay because wali dhinigay fadhiyay ugu yaraan tumay lama gabdhood oo madasho marcad saaranta oo asaa insaarani iyo dhagna agoomo lon ku tabi maradaas cadaha qaadi agoomo laha oo ku tabi xanuunkii geekiyo dareemahayo way balaha samri iimaan ilaahay siin ku sii dadka siin ku geeriyooday awlaadin ilaahay siin la koriye taaso dadka walaadnaga ee dhaawacay asaas oo kale way balaha ilaahay boogagin siin dhaya meel raayuse meel isma la raayuse xanuunka siin ku ilaahay siin ku caafiyo qudbada walaay lu qudbeey fadi oo guddiga heshay ee dhalinyarada sheegan ma qudbeeyo baaqa fada inaan inta ku jeediyo oo lama qaybad in shal qaado qayb may baan baaqay bulshada ka dhaqanka fur galbeed guud ahaan meel biyo rogan ganacsatada leh cilmaa u diinka leh guddiyada oo shalga diisan leh iyo dadka ka nool dibadda oo jaalido leh si la xaqiijiyay qaraxii dadka ka dhibaatooyay ilaa iyo 40 iyo lama qof 20 kumid ee dhimadan 7 kumid ana ciyaal ku tabeen dad oo xaasas ciyaal leh ahaayeen qaar kumid ee kaama ka noolin xaqiiqdii shalay markii uu kaamka seeni waybka ka jaray la eray oo dhalinyarada meel seedan ka jarayna gebar markii lan seedi boorti oo lan kaasay walaa usniisheena lay dabka ka shabadaani erti usuni miidsheen han ingili ertiya ka jarta ilaahay wala eray inisa ihsaan fala anina markaas siin ihsaan falay islaamana dinta islaamka sheegadaana dinta islaamkana waliba waa in nis ihsaan fala oo wala liska tara kor liska tara wayba qabnay gabdhoogun wala 15 Oktoobar ayaa dhamaantaan shaqada bilaawni guddigan waliba isku asaasiya lama guddigaasaytina waliba isla shaleeray guddi la yiraahdo guddi dawagal oo sadaw galo masaxaqay jaw dadkii oo haka waxyeeloobay iyo guddi kale oo leegtir gari intuu sa ogaada intuu sa aruuri qaraankii oo dadka masaakiinta hayeen la aruuriyay oo dadka muxsiniinta aruuriyay dhibaatada oo dadka barnaamijku iska deeri waliba way 46 qof يا دباتي سي برامج مصيبة سي صوبتي تتكاسيت أفرتي لتقف وليبا شلينا لواتي كوقف دمشو لواتي اللي تاسي ودمشل إيه تلوقف وليبا يوحينا تتحاسل يا هيا ساساتو لواتي شن قف يكراو عنتي لواتي شن تاسي قاركم يدي أولي قف إيه وليبا يو لينقاذي مجال المقدسة لينقاذي مركب وليبا فدانه العوام جيك سأرجع يتم وليبا له كوروري دمان بوشيد قيوش شلدون هذه هذا لايتي جناستدي هذه هذا لايتي أقوياندي هذه هذا لايتي معلمينتي هذه هذا لايتي بروفيسوريالك هذه هذا لايتي شيخيالك العوام جيك أنتي سنك أرجعتن ولا له كوروري دمان شعب كديجانو كونفور قلب الصومالي قال أهان إبراهيم معلمو TV عالمي كدولة كونفور قلبات مقالة Baydhabo